anigoo badqaba dumar baraashadii igu tahay bilow soo subax barqa bidhan aragtida kuma bogin indho anigoo badqaba dumar baraashadii igu tahay bilow soo subax barqa bidhan aragtida kuma bogin indho halkan casuumad aad iyo aad u sharaf badan baa nala ku sameeyay ama harimo saad u taqaanaan waxa weeye halka caruurtii baa fadhida halkaana dumarkii baa fadhiya halkaana raggii geedkan weyn hoostiisa ayaa qadan nala ku diyaariyay qadadii marka way soo socotaa oo jidkay ku soo jirtaa halkan baan ku qadayn doonaa waxa weeye si sharaf leh marka uu qadayno ayaanu beeraha tageynaa muuqaalo qurux badan baan idinka tusi doonaa gawaadhida aan wadanay waa kuwaas waxa weeyaan labada gaari baan wadanay beeraha waxa naloo sheegay inay halkaa waxa weeye wadadaas gurta dabadeeda ay tahay beeraha naloo sheegay waxa weeye muuqaalka muuqaal aad u qiimo badan weeyaan ee isha ku haya ina roob la way roortay oo reerkii bay raratay garoorkeeda ida gari garoorkeeda geesa cad labeenteeda maanaa luloo leefay maanaa dhigoo dhuuqay caanahay basari dhigatay maanaa burburin karaya kani waa neefkaa laga saaraa malab baa lagu shubaa si uuna dhididkan iyo waxaan ugu keenin halkan baa lagu qadaynayaa watan qadadii halkan baa lagu diyaariyey waa kan hilibkii iyo bariiskii iyo maraqii qadadii markay dhammaatay alxamdulilah aan dharagnay caruurtii raayoo dhan waa kuwa halkaas sii socda waxay u sii socdaan iskuulkii way qadeeyeen dabadeedna iskuulkoodii iyo waxbarashadoodii iyagoo dhaqankoodiina la socda iskuulkii iyo waxbarashadii iyo noloshii caadiga ahaydna waxa weeye kaalinteedii way wadaan aqal soomaaligan sidaad arkaysaan waxa weeyaan cusub yahay waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah alaabahan halkan yaallo oo dhan waxaa lagu sameeyey cali sabiix baa lagu sameeyey waxa weeye wax kasta oo halkan miiskan dul saaran cali sabiix baa lagu sameeyey casaamo waa magaalada wax soo saarka waxa weeye halkan imika aanu joogno maanta oo dhan wax layga dhaadhicin kari waayey ayaa lagu samaynayaa halkan lagu samaynayaa waxa weeyaan waa jaamku waxa weeye waa subaxii quraacda furinka ama roodhida jaamka la dhex mariyo ayaa halkan lagu sameynaya waxaana laga sameeyay camba babay ama batiiq saa u taqaanaan waa tan iyadoo gacanta lagu hayo waxa weeyaan imika uu kulul yahay waa la karkariyey kadib quraaradihii baa lagu shubayaa marka quraaradaha lagu shubo waa la qaboojinayaa deedna caadi baa loo isticmaalayaa walaal waxaan waxa weeyaan waa jeem ama konfirtiir ama qudrad la casriyeeyay qudradan waa baybay weey laga sameeyay jaamkii lagu cunayay furunka ama roodhida iyo laxooxda waa qudrad weeyaan beerta markii laga soo guro birimiye marka beerta saa looga soo guro waxa la baaldi baa loo qaadanaya waa la maydhaya isaga oo qoloftii wata oo dushii oo dhan wada hagoogan ayaa la maydhaya la nadiifinaya wadeeto weel nadiif ah lagu shubaya way jarjarayaan kadib waxay saarayaan dabka la saaraya waa la hagaajinayaa muddadii loogu talagalay inuu bislaaday baa la eegayaa qudrada qaarkeega kale ayaa lagu adkeynaya lagu ma ku shubina qudradan waa la sii kariyay iyo waa la hagaajiyay si nadiifsan ayaa loo sameeyay oo habaysan oo fayo dhowr leh kadib waa lagu xidhayaa kadibna istiikalkaas lagu nabayaa si uu caalamka oo dhan noola soo xiriiro cidii wax naga iibsatay ciwaanka iyaga u hayso inta ugu badan waxa naga iibsada horta dadka eeriyadan degan kaliyoongayga ugu weyn waa dadka miyiga oo badan ay qudradu ay ka meel u gaaraynin marka baybayda sidan bay ku qaataan dadka reer miyigu ubadkooga iyo nafaqo uga dhigaan ay laxooxda ku siiyaan si ay habkii qudradeed ay ugu dheeli tiraan caruurta Jabuutina waan geynaa dadka touristiga ee wadanka imanay waan ka iibinaa xabada quruurada wax weeyaan wuxuu leeyahay saddex qaybood buu leeyahay
qaybta ugu hooseyso oo ku iibinayna casaamo markuu joogo 700 buu ku baxaa markuu ka baxana wuxuu leeyahay qiimo 1000 faran 1200 1500 ilaa in ka badan buu leeyahay hadda waxaad soo aragteen iyadoo la samaynayo jaamkii oo waxa weeye processkii uu marayay iyadoo quraaradii lagu shubayo iyadoo magacii lagu dhajinayo kadibna la iib geynayo halkan inta iga dambaysa waxa weeyaan waxa lagu sameeyaa waa saabuunta qaar badan oo idinkeeda kamid ah way yaabayaan waxay soconayaan saabuuntan waa maxay halkan lagu create gareynaya saabuuntan waxa laga samaynayaa waa qasil iyo organ iyo saliid saytuun marka intaas la isku darayaa kadibna waxa weeyaan waa la qalajinayaa ilaa 3-4 saacadood bay oolaysaa kadibna waxay noqonaysaa saabuun caadi ah oo saabuun qasil bay magaceeda u bixiyeen marka saabuuntaasi waxay sida noo sheegeen wajiga iyo finanka iyo waxyaabahaas ay ka yareynaysaa waxa loogu talagalay in dumarku isticmaalaan yar rugba sidoo kale bal sida processkeeda loo samaynayo ayaynu wada eegi doonaa kale anigoo badqaba dumar baraashadii igu tahay bilow soo subax barqa fidan aragtida kuma bogin lindo anigoo badqaba dumar baraashadii igu tahay bilow soo subax barqa fidan aragtida kuma bogin lindo sidoo kale taas waxay saabuuntii adkayd saabuuntan qaybtan waa qaybtii iyadoo boodhara ama tayd saa u taqaanaan waxa weeyaan waa tan waa la sameeyey waxa ku qoran halgan baa ku qoran halkan baa lagu sameeyey waxan oo dhan waxa weeyaan waa isku wada mid waa wada tayd waa la wada sameeyey kaliya ta waxay u baahan tahay in la iib geeyo tani way kala duwan tahay oo marka tafaariiq lagu iibinayo dadkan deegaanka iyaga laftooda way isticmaalaan laga iibinayo way jaban tahay oo midkiiba 50 faran 20 faran meelahaas laga siinaya laakiin haddii magaalooyinka loo iib geenayo iyadoo isku xidhan imka qaybta dhan 1200 faran weeyaan sababta calankan loogu sawiray calankii Djibouti waxa weeyaan waxay cadeynayaan oo ay cadeyn u tahay in waxa weeye halkan lagu soo saaray Djibouti lagu create gareeyo halkan lagu soo saaray ay waxa weeyaan ay cadeynayaan labadayna gacmood qaybtana waxaan ku hayaa rumaan waa taqaanaan halkanna waxaan ku hayaa saytuun waxa weeye beertan aan ku sugannahay waa beertii ugu horreysay ee laga aasaaso casaamo waxa aasaasay daahir obsiya cawleed oo ku magac dheer qaashbaash wuxuu soo noqday 1986 qurba joog buu ahaa adduunyada suu ku safri jiray halkan buu ku soo laabtay iyadoon wax beeraa ka jirin oo waxa weeye dhulkan dhul iska engegan yahay ayuu beertan bilaabay uu beertay way la yaabeen dadkii deegaanka waqtigaas uu waday waxa weeye dadkii markii ugu horreysay ay arkeen sidaa imika waxaan cunayo wixii ka soo baxay khudradaan cunaya markay ka soo baxday ay saasoo kala u cunaan way la yaabeen kadib qof kasta waxa uu dhulka way haysteen dadku qof kasta wuxuu ku dhiiraday markaa inuu beer bilaabo 250 beerood ayaa lagu qiyaasaa beeraha halkan ku yaala dadka uu dhiiri galiyay ee waxa weeyaan isaga inspirationkiisii beeraley noqday waxa weeye imika wadadan soo marnay waa wada loo sameeyay dadkan beeraleyda si ay u maraan sababtoo ah maalin kasta dalaga ka soo baxa waxay u iibgeeyaan Djibouti erti maalinta la aasaasay 36 sanadood ka hor waa 1986 waxa weeye maanta waa tan faa'iidadeedii marka koobaad iyadii waxba laga faa'iiday marka labaad dadkii deegaanka waxa weeyaan ku dhiiri gelisay inay iyaguna beeraley noqdaan haddii aanay beerahani jireen dadkan reer guuraaba iska noqon lahaayeen oo Djibouti dhulkaasi aadi lahayn laakiin waxa weeye waxa halkan ku hayay inay halkan dalag kala soo baxaan oo halkan wax ka sameystaan meeshan waa iskool oo kale waxa weeyaan geedahan yar oo dhan waxa loo diyaariyay qofka jecel inuu beer sameysto ama waxa weeye beer xiisaynaya 10 geed 5 geed baa la siinayaa waxa weeye halkaas noloshiisu ka bilaabmaysa ilaa imika oo dadku waxaas oo beera ay sameysteen still uu wada shaqadaas iyo keligii dhulkan iska qodanay markii la arkay waa la yaabay ninkan uu waalan sidii loo hayay ayada dad aqoon laba si arkay oo maxaan kugu caawinaa leeyri wax kale ay ugu caawinina wixii beertan ku soo saari lahayd ugu caawiyo sooleerka waa lagu caawiyay sooleerka imika faa'iido badan buu leeyahay mooteer dadka imika mooteerada way la cadban yihiin sooleerku goor ayaan biyo saams kaga socdaa
عضو بالحبلة على كوبة berkadana arkisiin dad dalxiisa ayaa nagu caawiyay waxay nagu caawiyeen 12 milyan oo faran ayay nagu caawiyeen solar iyo berkad iyo wax walba waa ka maanta faa'iido badan bay noo tahay berkadaasi sida biyaha way iska socda goori ayaan dhulka saasaan ugu sii daynaa nimcada ilaahay alxamdulillah ilaahay baa lagu shukriye عضو بالحبلة hadda dhinacayga waxaa taagan daahir obsiye cawleed oo ku magac dheer qaashbaash adeero waxa weeyaan 1986 iyadoon cid wax beerataa jirin dhulku engeg yahay ayaad intaa timi ayaad halkan beer ka samaysatay maxaa kugu dhiirigeliyay waqtigaas mahadsanid waa su'aal fiican waxa igu dhiirigeliyay waxaan horta ka mid ahaa dhalinyartii tacabirtay tariifka ma tacabirtay adduunyada tagtay baan ka mid ahaa markaadeeda runtu isma qariso waxyaabihii aan ku soo arkay adduunyada anoo meelo badan soo maray dadkaan u tegay aan soo arkay intooda badan waxay ka shaqaynayeen beeray leeyihiin midda labaad magaalada Tunis la yidhaaho iyuu oday gabadh kaliya lahaa Faransiis oo nin saaxiibkay iyo inantiisa la sheegaysan jiro inankii uu casimo kiina aniga mid kale uu casimo reerkii la casmaan u tagnayoo qadadii markaan cunay odaygii wuxuu bilaabay adiga magacaa hebel maxaad ka shaqaysaa markaad kii horreeyay baa yidhi magaciis markuu sheegay jisiyo showbiz technique waxaan ku jiraa shaqaalii baan ma shaqeeyay imika shaqaalii baan ahay odaygii wuu qosday maxaad ka qosashaa wuxuu yidhi جامعة توشوماش تكنيك ولي شغالي ما كود شغالي محل سبع سبع نوحيلي لبس ساعات بان له هي بارير وليف كان بيرا تمات كان بيرا وحال كان مري يودل ايام بيرا بويلي kolka dawladda anay wax iga baahataa baanbada iyo koraakii waxaan waa ka bixiyaa markii aan tagay Pakistan iyo Suudaan iyo dadku qaran walba wixii isagu uu ku daalay soo saaray iyo cunaa cid meel uu wax ka iibsataa oo inaka Djibouti hayn ma jirto marka cid walba wixii ay beertay khamri dooni uu sameeyay ka cunto dooni uu sameeyay ka dhar dooni uu sameeyay qolo walba wixii u baahnayd bay samaysay marka inakuna ina kaga daynooy marka anigu kuwa jaamacada ka soo baxay ma hayna waxaan keenay sida dhulka loo beero iyaan u keenay dadweynihii waqtigaan noolaa way waad soo noqotay adigoo khibrad iyo experience iyo motivation wata waxaad timid dhulkan imika casaamo beer baad bilowday maxaad la kulantay caqabadii ugu weyneed ee waqtiga aad la kulantay maxay dilay dadku beer ma aqoonin fariid waxaan ku yiri caqabadii ugu weyneed la kulmay waxay ahayd dadku inaan ka mid noqon waayay tuuraan oo ay rajateeyaan ay iga soo qaadaan nin waalan halkaan beeriye dumarku iyagoo shan isku soo raacmay agtayda wadada ma marin sababtoo ah way iga cabsoon jireen maanta 250 beerood wax ka badan ayaa ku yaala casaamo beertaadaana dhashay oo waxaas oo beeraay may samaysmeen haddaan beertaadu aanay jirin maanta maxaad dareemaysaa waxaan dareemayaa waa maalin maalmaha igu fiican ku jirta farxad baan dareemayaa hawaawigii aan waday baa run isku bedelay message-ka aad halkan uga diraysaa waa maxay dadka dhalinyarada ah ee imika generation-kan jira message-ka horreeyay u diray dhalinyarta meeshay doonaan baa joogay af Soomaaliya ku hadasha waxaan leeyahay ifo accuracy la terre dhulka qodan leh dadka meesha doonta joogo dhulka qodan leh oo beera dhulka qodan leh qalbiga beerka kuma baahino soo noqon bisti